marka hadda waxaaba diyaar ah fanaan walbo waxa run ah oo is ognahay fanka inta ku jirta nin walba waxba u diyaarsan yuusa soo saarin hadduu rabo laakiin fanaan walba waxba u diyaarsan marka hadda cabdirasaaq iyo Omar labadooda wixii u diyaarsan caawa kulley waa aaminsana inay wax u diyaarsan yihiin inay ku tartamaan baa rabnaabo waa abwaana la raadinayay sharmow wax yar baan ka dhexgelayaa niyow qamar qolkiisaanu nimid waxaanu nimid gar inuu qaado inaad raalli baan kaa raalli gelinayaa waxaan kugu yidhi walaal Omar oo iga raalli aho inaad iga raalli qamarow gar baanu kuugu nimid inaad noo qaado inaad adigu noo bootayso annaga kuugumaana iman inaad haye oo tiraahdo laxan baan ku dul samaynayaa labaduba ha qaadeen eg hadallada qaarkood oo liidnimada ah hadduu asagu yeelayo qaadanayo ilaan fanaaniinta baahda laga dilayo masaakiinta oo 7 sano hashtag wata anigu ma haye haye inaadeer waan qaatay maan deera banaan degay baa taa la tartamayo waxa ila tartamaya meel fagaara ila tartamaya ninkaas aan isayno fanaaniin waaweyn iyo abwaaniin waaweyn haye inaadeer waan ku ogolahay nooga dhigaysaa waan ku ogolahay waxaad igu tiri waxba ma taqaanido ana waxaan ku xasuusiyo inaadeer mood baan kaa gelayaa inaadeer hawsha anigu waxaan u egmaday Sharma Booye Daawud Burcaawi iyo Cadnaane raallina waan kaa geliyay waxaan ku weedhana waan kaa raalli geliyay hawsha inoo wada qamar mood gal waaye asaxa mood gal walaalahay dhageysta hal mar anigu fanaaniga weyn iyo fanaaniga yar labada waan ixtiraamayaa waxaan malaynayaa inta halkan ku jirta midna inuu fanka iga weynayn walaalahay waxa weeyaan aan fanka kaga soo horeeyay baan arkaa de Sharma Booye tahay qamarna kii ku yidhi baan hay wada heesi kartaa hees beenaal demokratiga iyo fogeeya Omarna taariikhdiisa waxa weeyaan isaga bayaamiyay xilli fanka soo galay waana mid aan uga weynahay haddana waxa weeyaan Sharma Booye iyo waxa weeyaan qamar haddaan isla waxa weeyaan fanka laakiin anigu aan shacab kuma xaqirsanid walaal qamar oo dhigka ha dhameystay aniga saay anigu kuma xaqirsanid walaal niyo qamar oo moodka meesha ku taala taqaana horta moodka gal ha hadlin hadii lagu socdo xataa run hadii lagu socdo xataa ha hadlin markii ku soo gaadha hadalka ka dhaxgal inaadeer marka qamar aniga oo shalay ku yidhi waad heesi kartaa hees ayaan maanta ku kalsoonahay inuu galo arintayda ma garatay waa mid aan ku qancayo inuu laxan igu dulsamo legend baan u aqaanaa weliba ma garatay legend Soomaaliyeed baan u aqaanaa Sharma Booye legend baan u aqaanaa isagoo shalay tolofanka waxa weeyaan aan siinay talada aan kula walaalkayo sida yeel haddana waan ku go'aamaanta oo waxa weeyaan ma dhaafayo ma garatay haddii walaalkay ku qanacsan yahay fanaaniin waaweyn oo ka waaweyn inuu keeno iyo awaaninka waan ku qancayaa Cabdiqani iyo Daawud iyo Cadnaan waa walaalahay waa niman aan ku qancayo aan dhaafayn sida ay tahay isaga sidoo doonayaan yeelaynaa xilligu keensado abwaaninta iyo fanaaniinta waaweyn hanoo ahaatay ilmaada reelintan idin daliilina raali ahaada shacabkana waa raali gelinaynaa ixtiraamiyo karaamad laga mudantiin waxaan horey nooga meedan baran waxa weeyaan xal baan ka bixinaya meeshaan haygu kalifina Cabdi Fataax Taabir oo aan fanka inuu xataa social media soo gala jecnaynan keeno laakiin sida saxda ah buu kala saaraya hadan keeno sheekadaas way dhantahay nimay ahow waxa inaga ma dhameyn karno waxaan imaan dhameeyno hadda qolka markaan ka soo baxnay dhageyso cabsi ma ahan de inaad labada nin anu ma dhihi kara aadna fanaan matid aadna fanaana tahay aad fanaana tahay hayno heesan dadka iga soo horeeyeen xushmadna waa u hayaa أنا وده وحاجة وأركاب الجميلة dadka hoosta jooga kala saaraya haynoo heesaan iyo inoo gabane ma marmarsiin markaan qolka ka soo bixayna waxaan lahayn nimayahow naga daaya qolba qol anagu dad meeg ciyaar qaatanihin noo hees han marmarsiin aan ku jirnay muranka intood halka ay dhigtaan laba heesood oo kii kala qaado horta car laba heesood kala qaado aniga قمرو waxa weeyaan George walaalkay meesha codkiina ida kala saaraya walaal marka laba heesood kala qaadan walaal ayada dhigeyso ninku wuxuu dalbaday baan la tagayay
وده جوزكيسا أنا أقول كسرنا ولا كم دافسين لكن إسقوا ضد بوكو كسرني هاي dadka ku kalsoonaan way joogaane qamarow anu hal mid baan dhihi lahaa qamro yira aan wala qaalish sharma ka wala yira ma nooyar heestaan annaga idin kala saarayna annaga lafteeda shicib naga soo qaado horta beesa gifta lagu kala saaro asxaabta gifta lagu kala saaro yani nin gifti badnaada oo yani giftigiisu yani heer sar gaaro lagu kala saaro dadsi haddaan garanayaa qofka giftiga la siinaya qamarow ninkii adiga shalay ku yiri hees qabyaalad kama hadlayo baan anigu leeyahay ixtiraam Umar Yars asxaabta hadii yani ay ku kala baxayaan gifta ku kala baxaan haddaan garanayaa qofka giftiga ku dhacay haddaan garanayaa جيم زود codha lagu kala baxo cod yiri gifti ku kala bixi maynee fan baan ku kala baxaynaa fan baan ku kala baxaynaa u yeera abwaanadii waaweynaa oo fanka way joogaan war ninkan kula hadlaya waa abwaa weynde waan ogahay laakiin kaligiisa kaligiisa nala jooga marka isagu maciyal xaafad baa meel ku kalsoonay kaligiisa nala jooga adiga qamarow ninkii shalay ku yiri hees waad heesi kartaaye baan anigu leeyahay ixtiraam iyo akhlaaq la imow marka adiga iyo isagaba waan dhixbaan idinahay anigu isaga taageerayaad moodaysa maya inaad tiraahdo labadaba laxan baan ku dul samaynayaa hadda iimana diyaarsana ha qaadeen laxankayga wallaahi hibada iyo way kala duwan yihiin waxaad sheegaysaa anigu labadiinaba walaal waan idiin samayn karaa laxan labadiinuna way samayn kartaa dad meer qaba meesha aan wada joogna ama anigu Omar baan ka soo martay karaan oo dhan Omar laxan ay samay ceeb ma anshaxna waxaan oran karaa laxan ay samay ceeb ma qamarow waa nabi ku saliyaniyo waa saal carab ilmaadeerayaal warka waxa soo gabagabay sharma boy hadayna waa idin sheegay hadda waqti xaadirkan qalcad loo dhiibo iyadoo saal leef loogu jiro laxana sameeyaan laba nin waaba u diyaarsan nimankaa waxay ka cararayaan uma taqaanaa laxankayga yaqaanaa way cabsi baad jirtaa nimankan ha oranin waad qaldantahay qamar anshax waa diyaare Omar wuxuu ka cararayaa inaan laxan sameeyo laxankaygana waa garanaya Omar ma maqlaysaa walqaari wallaahi laxankayga waa garanayaa mid kale anshax waa ogolyahay inaan laxan u sameeyo laakiin Omar laxankayga waa ka cabsanaya labada idinkoo yidhaahaa heesta baa la qaatay meesha laxan laguma tartamayn maya anaa idin kala saaraya labadiinana hal qalcad baan idin la xamaynaya halka qalcad sida u qaadaan baan erayawna hayla tagina wixii kala diyaar baan u ahay laxan baan ka sheekeynaya qamarow adigu goormaad fanka soo gashay sidaada barnaamij Omarow adaa iga lejansan haddii laxankaan sameeyo aad qaado caawa haddii aad laxankaan sameeyo caawa qaado wallaahi adaa iga lejansan weligeena dib oo dambaysa kuma odhanayo fanaan baan haysataa okay qof walba qaab buu u heesaa bulshada Soomaaliyeed qaaba dhageyso qof kasta qaab buu heesaa aniga hadaba heesii la xamay ana qaadaya Omarow aniga laxan ii samee caawa ana qaadaya qamarow de walaal adiga baash ka sidagay buuq ninkan uu saxsay qof kastaba way buu leeyahay eraya u dhiiba hal mid ah nin kastaba dariiqiisa kula xamaysto waa maya fanaanku waa laxan kasta oo bilaahi oo talay labadiinaba laba nin oo intaas milyan ee daawato fanaanin Soomaali ah u kaadide hadda sida dad miir qaba wada hadalna sharma boy oo raabara ma aragtay hal mar qamar maxamed caadiga Soomaaliga Omar hadduu ka baqayo ka waran waxa yaro sameeyo laxankayga qamar adu waxba Omar walxan baan u diray erayaan u dirayaa Cabdisaq erayaan u dirayaa asaga hal xamaysto walba asaga hal xamaysto halkan buu luminaya daasiid warda aniga anshaxiyay ma kala xigaan Omar soo moogi may maqlaysaa xoogaa iga sii hadalka xoogaa iga sii aniga ma ku badanaya aanu isdhageysano aniga laxan haday noqoto waxaan qaaday ninkii shahaadadii ugu dambeysay oo laxan la siiyay Cabdi Baadil laxankiisaan qaaday oo waa bariya adigu hal laxan oo qof waa bari ka tirsan uu leeyahay uu sameeyay ma qaado haddaan ku sheegay ka war
الشيك waxaan qaaday hees uu sameeyey aabihii fanka ma taqaanaa aabaha fanka ma taqaanaa شيك بانكو يري محمد سليمان تبعبه maya حان قاضي انا ma taqaanaa heesta la yidhaha riyaha qawan baa idaha ku qosle الشيك يا lifekaana waa la duubayaa lifekaana waa la duubayaa hadalkaasna waa caddaan doonaa leeyahay riyaha qaawan baa idaha ku qosle ma taqaanaa anigu yar taleex ku dhalatay oo cabdi baadil la xameeyey baan qaaday cabdi baadilna waa la wada inaad cabdi baadil baadna ka sheekeynaysa anna aabihii fankan ka sheekeynaya haddii ka waran Omar aanu aabihii fanka Soomaaliyeed garanay Cabdilaahi Qarshe ma taqaanaa cabdilaahi qarsho qaado qamar oo aamo inaad adaa marti lagu qolkaaga la saaray ragga isku daa oo ama maya de Omar anigu imtixaan iga qaadaya eegda Omar باش وانشح way ka tagtay qamar iyo waxa weey Omar waan ka baxay ana Cabdilaahi Qarshe reediisa baan qaaday aabihii fanka Soomaaliyeed ka baxday intaan meesha aan saaranahay fanaaniin baa ku saaranahay muud baan galayaa sharmo muud baan galayaa mar dambana ma hadlayo ayagal inaad macaani hadda inteenaan annagu nafteena kaliya ma matalne waxa fanaaniin Soomaali ahaa marka aniga xataa la iga reebo raabar bi ugu tiriya intiina kaloo meesha saaran fanaaniin Soomaaliyeed baa matashaan hadeertaan meesha ay saarantiin ma garateen labada ninna markii laga hadlo si dad miir qabo marka oo wada hadalno laba nin oo fanaaniin oo la yaqaanay ahaayeen ma garateen xaaladdu dadkoo dhan waxay u jeedaan xamaasadaas iyo waxaas iska rabaan ma ahane inay bataqaana caaw ay ka wareersan tahay labadaba xaqiiqo marka laga hadlo waayo hala tartama iyo waxa iyo meesha ma taalo marka ima adeerayaalow fanka Soomaaliyeed aniga kuma bajiro hadda idin leeyahay fanaan ma bihiba laakiin idinka fanki Soomaaliyeed baa matashaan fanaaniinta kala matashaan ilaahay baan ku dhaadiyay naga dhicin dhageysatay horta qamar oo marada iyaga naga riday caawa dhan bal labada nin bal inaad WhatsApp-kayna geeyo xuri labada nin qamar qolkaada ale ka aamu qolka haye waan ka baxay Daawud marka inaad marada taanayba ku dhacday inta ka badan macawusta qamar sugaan waxaan ku oranayaa markii ugu horeeyay Omar uu ka booday marka haddaad kari inaad iska aamusto fadlan kadib bal ka dhacdo wacanay mar dambe ma hadlay walaal amarkaaga jira fanaanadu naga dhacdo garanta sidoo kale hadda macawusta baa noo hartay ma fahamtay taana naga siibina shahoosha meesha ku ekeeya gar intaasoo raga ee isugu imaato 10 daqiiqo lagu goyn waayo intaasoo saac aan meesha la saaranahay waxaan ceeb ahaan kama soo saartay waan ka baxay marka mawduucan oo dhan la soo xiranaadeen bas halka ku xidhay mawduucan meeshu doonayaan la tagay halka ka dhaco inoo bedel mawduucan وانت بس انت لو حر موضوع بس هديت ترتمين ماشي انا اسلا هذا ترى من نوقلا انا عاوز نقول شراب lahayn maadaama wax weeyaan shiri tijaabaan shiri qaado wax weey rag heshiisiye maadaama adinku meel kale isku balansateen de waanu xiiqneen madadaaliyo heeso noo qaad adiga Omar hadaba tartankii baan ka soo guureynaa iyo challenge-gii ka dhaxeeyay labadoodo waan sheekaysanaynaa maxaa ka qabtaan haddaynu sheekaysano sheeko u bedelay kafta وانت قمرو ان كلير كفتمه قمرو ان كلير كفتمه markaad fanka soo galeysay god talent baad ku soo gashay adoo go'shaala inaadeer Omar anu gabay baan ku soo galay gabaygiina marka ciyaal baan ahayo aqoon ma lahayn gabayga dhagayso ha markaad fanka soo galeysay god talent baad ku soo gashay waliba waxaad ku soo dhex dhuumatay fanaaniin kale adoo fanaan ah laba heesood leh man heesin god talent goola waad heesaysay dhagayso bal god talent-ga hadii ba loo daawado waad heesay Omar man heesay wala macaan waliba gabayga lagu qabsaday gabayga anu waliba waan yaraayo daaqoon uma lahayn walaal waan qasbay moogta ha ma uu ka timay uu saxsanaay waan yaraayo aqoon uma lahayn suugaanta ma fahanta markaan ku dhacayna waan dadaalay oo waan ku soo baxay markii dambe marka qamaro waxa ii sheegtay anaad waxa fahmay hees aan leedahay dabdal mardish andiga limdin caalim gaalim wala